إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka quraanka kariimka aan ku soo jirnay casharkuna maanta wuxuu ka bilaaban aayadda 109 buu ka bilaaban oo min suurati al-maa'ida ka ahaaday wadhkuru xusuusta ayuhan naas yawma maalin xusuusta oo qalbiga ku haya يجمع الله إلهي أوصاكل منها يو الرسل رسوش إلهي أوصاكل من وفيقول الله أولها يو ماذا أجبتم محال إذين كجوابي وماذه عن إذين دري محي إذين كجوابين قالوا وحيدها يا رسوشو لا علم لنا أنك نوم سجنان إنك أذيقو أنت أذيقو علام الغيوب وحيابها مقن الله علم بدن بعتهاي وحي آياتها نكهد ليان مظهر أو من مظاهر القيامة قيامة مظاهر تيدا مظهر كميدا أي آياتها نكهد ليان الله وحوله سبحانه وتعالى حصوص تدضو مانك إلهي رسوشه ويسوكين أيوه ومركو مال إسوكو كان أولها أيوه محال إذن كو جوابي ومذيه إذن درعي محي إذن كو جوابين رسالة ما إذن كقاتل مسوى إذن كقادم وايين رسوشه وحيدها يان لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب محايا لميشا لتاغن يهيبان ميل سهلنا هين رسوشا وحاها يا أرقق حباها يا وأرقق سيهين مجاهد يا حسن البصري بمركة آيات فسيرة يين وحير عدين هاولك إيا شدادا ميشا تعالى الدرتاد والولك إيا أرقق حرسوشا هيا الدرتاد أي هذا الكاول هيان لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بينهايان محايا لي ماشا لتاغن يحي
maqaamka ayaa wuxuu yahay maqaam aan caadi ahayn rususha marka argagax iyo walwal baa haya saasay marka ku jawaabayaan wadhkuru xusuusta ayuha nnaas yawma maalin xusuusta yajmacu allaahu ilaahay uu soo jamcinhayo arrusula rususha uu soo jamcinhayo oo fayaquulu alla uu dhahayo maadaa ujibtum maxaa la idinku jawaabay qaaluu rusushu waxay dhahayaan laa cilma cilmi lana annaka nooma sugnaanin innaka adigu allow anta adigu callaamu lguyuubi qaybyaalka allaha ku cilmiga badan baa tahay adigaa marka ku cilmi leh waxa ay noogu jawaabeen iyo waxa ay yidhaahdeen cidda ilaahay iyo rususha iyo qiyaamo rumaysay iyo cidda aan rumaynin ilaahay oo adaa ku cilmi badan id waqti xusuusta qaala allaahu alla uu dhahayo qaalada cashiradan ku jirtaay macnaheedu waa yaquulu wuxuu ilaahay ka cabiray qaala ayuu ka cabiray maxaa yeelay qiyaamada dhiciddeeda ayaa wuxuu yahay shay muxaqaqa sidaasuu ilaahay qaala uga cabiray sidii shaygii isagoo dhacay oo kale cashirkan marka qaalooyinka ku jiraayi macnahoodu bimacnaa yaquulu weeyaan id waqti xusuusta qaala allaahu alla uu dhahayo yaa ciisow ciisihii ibna maryama wiilkeeda ahaayow udkur xusuuso nicmatii aniga nicmadayda xusuuso calayka adiga dushaadana aan u nicmeeyey wa calaa waalidatika duqdii ku dhashayna aan u nicmeeyey id waqtina aan kuu nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey biruuxi lqudus malakul jibriil aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aad la hadlaysid annaasa dadka aad la hadlaysid oo filmahdi dhabta aad kula hadlaysid wakahlan xaal aad tahay garhmadoobana dadka aad la hadlaysid wa id waqti aan kuu nicmeeyey callamtuka aan ku baray alkitaaba qoraalka aan ku baray walxikmatana aan ku baray watawraatana aan ku baray walinjiilana aan ku baray wa id waqtina aan kuu nicmeeyey takhluqu aad abuuraysid min addiini dhoobada xaggeeda aad ka abuuraysid shay-an shaygaasoo ka hay-ati dayri shimbirta qaabkeedoo kale leh biidnii aniga idankaygana aad ku abuuraysay oo fatanfuqu aad ku afuufaysay fiihaa dayrka fiigiisa shimbirta fiigeeda oo fatanfuqu fiihaa shayga muuqaalka shimbirta oo kale leh aad ruux ku afuufaysay oo fatakuunu ay noqon haysay dayran shimbir biidnii aniga idankayga ay ku noqon haysay oo wa tubri'u aad bogsiin haysay alakmaha indhala'aanta midka lagu dhalay iyo wal abrasa midka baraska qaba biidnii idankaygana aad ku bogsiin haysay wa id waqti aan kuu nicmeeyey tuqriju aad soo saaraysay almawtaa kuwa dhintay biidnii aniga idankaygana aad ku soo saaraysay wa id waqti aan kuu nicmeeyey kafaftu aan kaafiyey oo aan reebay banii israa'iila reer banu israa'iil canka adiga xaggaaga aan ka kaafiyey markay dooneen inay ku dilaan nicmooyinka aan kuugu nicmeeyey waxaa ka mid a gacmahoodii inaan kaa qabtay id waqtina aan kaa kaafiyey ji'tahum aad ula timid bilbayinaati aayada cadcad faqaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay minhum reer banu israa'iil xaggooda xaal ay ka ahaadeen in haadaa maa haadaakaasi ma uuna ahaanin ilaa sixru sixir mooyaane ee sixirkaasoo mubiinun weliba cad ilaahay baa wuxuu leh subxaana wa tacaala waxaad xusuusataan dad yahow
hadallada uu ilaahay maalinka qiyaamo nabi ciise uu ku dhahayo calayhi salaam marka la isugu yimaado banka qiyaamo ummadaha kii ugu horeeyay iyo kii ugu dambeeyayba la isugu yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi ciise wuxuu u sheegayaa oo ilaahay uu ugu manno sheeganhayaa nicmooyinka uu soo siiyey ilaahay nabi ciise uu siiyey calayhi salaam ilaahay baa marka wuxuu leeyahay xusuusan nabi ciisow nicmooyinka aan adiga kuugu nicmeeyey duqdan adiga ku dhashay aan ugu nicmeeyey alla wuxuu leeyahay waxaan kugu xoojiyey biruuxi alqudus horaynu uga soo hadallay malakul jibriil inta uu laazimay nabi ciise qof uu laazimay ma leh ambiyada oo dhan rususha oo dhan wuxuu ahaa safiirka ilaahay iyo ambiyada u dhaxeeya ayuu malakul jibriil ahaa laakiin sida uu u laazimay nabi ciise nabi kale u laazimay ma jiro alla wuxuu leeyahay nicmooyinka aan kuugu nicmooyey waxaa ka mid ah adiga oo hooyada dhabteeda ku fadhiya oo markaa uu dhashay ayaa dadkii la hadashay nabi ciise calayhi salaam aabba ma uuna lahayn markuu dhashay ee maryama ay dhashay reer banu israa'iil way ku inkireen waxay yidhaahdeen xaggeed ka keentay ilmahan adiga dadkiina laguma aqoonin qallooce muxuu yahay qalloocani markaasaa waxay tidhi kan aan dhalay la hadla markii hadalkii la isku celceliyey waa kii isagu la hadlay ee yidhi innii cabdullaahi wa rasuuluh waxaa kale isagoo kahli ah oo 30 iyo dhowr jirana reer banu israa'iil buu la hadlay risaaladii ilaahay buuna kula hadlay wuxuu yidhi ilaahay caabuda shirkigana iska daaya alla wuxuu leeyahay nicmooyinka aan kuugu nicmeeyey waxaa ka mid a inaan qoraalka ku baray nabi ciise calayhi salaam ilaahay wuxuu baray qoraalka ayuu ilaahay u sahlay isaga oo aan meel wax lagu barto aan la geynin ayuu haddana qoraalka ilaahay baray oo qoraalka nabi ciise uu qoro qof qori karaan uuna jirin xigmadna ilaahay wuu baray xigmadda ayuu ilaahay baray xigmadda horaynu uga soo hadallay waxaynu nidhi xigmaddu waxaa weeye alcilmu naafic waalfiqhu fi ddiin iyo shayga oo meesha uu ku habboon yahay la dhigo ilaahay xigmaddaana wuu siiyey nabi ciise calayhi salaam towraad buu ilaahay baray injiil buu ilaahay baray nicmooyinka kale ilaahay ugu nicmeeyey nabi ciise waxaa ka mid a dhooba intuu soo qaado oo wax shimbir qaabkeeda leh uu ka sameeyo oo uu afuufo ayuu waxaasi shimbir noqonaya biidni illaah oo uu duulayay dadka indhala'aanta ku dhashay akma waa qofka isagoon indhaba qabin dhashay akmahu dadkaas gacanta intuu mariyo nabi ciise ayay indhuhu fagdhihi jireen waa wax hadda wax samayn karaaye dhakhaatiirta hadda leh cudurrada indhaha waan ku takhasusnay oo naloogama annaka addoommada ugu naqaanaa waa waxayna samayn karin dadka baraska qaba ee damku dhiiggu intuu fasahaaday haraggii uu caddaadayna gacanta intuu mariyo nabi ciise ayuu qofku siduu ilaahay ugu talagalay iska noqon jiray dadka dhintayna nabi ciise calayhi salaam iyagana waxaa weeye wuu soo nooleeyey markay ku xujeeyeen oo ay yidhaahdeen bal inaad nabinimadaada aan hubsanne qof dhintay soo noole ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa ku soo nooleeyey culimada mufasiriintu waxay leeyihiin markii dambe waxay yidhaahdeen dadkan aad soo noolayn waa dad hadda dhintay anigii wiilashii uu nabi nuux dhalay mid ka mida saam ayaan qabrigiisa naqaanaaye waan ku tusaynaaye isaga soo noole bay ku yidhaahdeen itusay intuu yidhi oo meeshii uu tegey ayuu u dhawaaqay markaasuu fut soo yidhi waa mucjizo shaygu mar hadduu mucjizo yahay waa khaariqulcaada miskaxdaadu ma keeni karto adigu ma qiyaasi kartid mar hadduu shaygu mucjizo yahay ilaahay baa wuxuu leeyahay
nicmooyinka kaleen ku siiyay nabi ciise waxa kamida reer banu israa'iil markay damceen inay ku dilaan ana ka kaafiyay oo gacmahooda ka qabtay nicmooyinkaas oo dhan ilaahay wuxuu ugu manna sheegan hayaa nabi ciise calayhi salaam إذ وقت حصوصتا قال الله ألا أورنهايو يا عيسى نبي عيسى عيسى ابن مريم ويل كذا هايو اذكر حصوصا نعمتي أنيق النعمة إذا حصوصا عليك أذيك الدش هذا أن أقول نعميي وعلى والدتك دقذي كل شيء أن أقول نعميي إذ وقت بنكون نعميي نعمتي ذاتي إذ تاسكو تعلق من جهة النحو إذ وقت بنكون نعميي أيدتك أنكو حجيي بروح القدس ملك الجبريل أنكو حجيي تكلم الناس ذاتك حال أدلها الليسيد في المهدي ربطنا أدكلها الليسيد هو يضع ربط هذا كسوغنا ومركات لشينا dadka aad la hadlaysay wakahlan xaal aad tahay garmadoobana dadka aad la hadlaysay risaalada aad gudbin haysay wa id waqti aan ku nicmeeyay idtii hore ayay ku cadfan tahay wa id waqtina aan ku nicmeeyay allamtuka aan ku baray alkitaaba kitaabka aan ku baray wal hikmatana aan ku baray wat tawratana aan ku baray wal injilana aan ku baray ونعمك إلهي نبي عيسى عليه السلام وإذ وقت أكون نعميي إذ تي هريكو ولا عدفيهينه وإذ وقتنا أكون نعميي تخلق آد أبو ريسي من الدين الضوابط حق هذا آد كأبو ريسي شيئا شيء مفعول كيف أقول شيء قاسو كهيئة الطير شمبرت قاب كيدو كرالي بإذني أنيقا إذن كيغنا أدكو أبو ريسي أنيقا إذن كيغا أدكو أبو ريسي إلهي باو إدمي وفتنفق أدكو أفو فيسي فيها شمبرت في جيدا روح أدكو أفو فيسي وفتكون أي نقون هيسي دايرا شمبر دوريس بإذني أنيقا إذن كيغا يكون نقون هيسي وهو تبرئ أد بوكسين هيسي الأكمها إن لأنت قفك كل شيء هي والأبرص قفك برسك قبا بإذني إذن كيغنا آد كبوكسين هيس وإذ وقت أن كون نعميي تخرج الموتى كوار لنتين آد سو ساريس بإذني أنيك إذن كيغنا آد كسو ساريسي وإذ وقتنا أن كون نعميي رمان إذ تيوريك وضعت فيهين كففت أن كافيي أو أن قبتي بني إسرائيل ريب بنو إسرائيل عنك عذيك حقاق عنك قبطي إذ وقتنا عنك كافيي جئتهم آد أرتمد بالبينات آيات عد أو مركا أي كو حاسدين أو أي دونين إني كدلان فقال وحيد هذين الذين كوي كفروا قالوا بي ومنهم ريب بنو إسرائيل حقوا ذكا هذا إن هذا ما هذا كاسي مأونا أهانين إلا سحر مويانه سحر كاسو مبين عد وإذ وقتنا أنكون نعمي نبي عيسى أوحيت أن وحيوذي إلى الحواريين حواريتي أن وحيوذي أن آمنوا أن آمنوا بي أنيقا الرمية وبرسول رسول كيغان الرمية قالوا وحيد هذين حواريينتو آمنا إلهي بان رميني رسولك إلهي نوان رميني واشهد الله مخراتي كنقو بأننا أنكم مسلمون إن أنهي كوه قانسمي ونبي قاقر رميي رسالة النبي قاقاتي الله وحوكم من نشيق النبي عيسى عليه السلام إنو إلهي قدري إنو يشو حواريين تلاميذ إساقا أخالصة ورسالة كو قرب استاغي وإساقا راعي إلهي إنو النبي عيسى السيي أيو إلهي أقوم من نشيقا ونعمو كميدا نعموينك إلهي نبي عيسى وقول نعمي عليه السلام وإذ وقتنا أنكون نعمي النبي عيسى
أوحيت أن وحيودي إلى الحواريين حواريين تأن وحيودي أن آمنوا بي أنيقا الرمية وبرسول رسولك إيقنا الرمية قالوا وحيد هذين حواريين تي آمنا ورمينا حقا واشهد الله مخراتي كنقو بأن أنكم مسلمون إن النهي كوه قاسمي أو ولبا مخلصين أو صادقين إيمانك كل شيء إن النهي إلهي يوم مخراتي كنقو واذكر شيك نبي محمد إذ وقت قال الحواريون حواريين تؤيد هذين يا عيسى عيسى ابن مريم ويل كذا هايو هل يستطيع ربك ما أودا أن ينزل إنو كسو دجيو علينا دوشنا مائدة مس وراشك بوحو من السماء السماء حقنا وكسو دجيو قال وحير النبي عيسى اتقوا الله إلهي كبقى إن كنتم هداته المؤمنين كوا حق الرميي أو إيمان لهداته إلهي كبقى أو أرنتن أتشيغ إيسان كهرا ابن آدم مرنا زل لك واي مهيو حواريتي هذا الله إنه أماني إلهي إنه أماني أيها وحي يراها هالين سوى حقا أن توصنين أيها يراها هالين محايا لي يا عيسى صح معنا هنا هذا يا رسول الله يا نبي الله أيها هذا الكوكور حسنا وهكذا صح هين هل يستطيع ربك أيضا صح معه مفسرين وحي ليهن وأنزل كمية زلات كابن آدم كدعي ابن آدم زل لقى واي مهي لكن إريادي حواريين تكفعنا معهين وحي مركا يلهدين عيسو ربيقا ما أوضا إنو سودة جي مائدة وحالا يلهدا ميساسك واوين راشيك اللي قبو حيا راشيك اللي صارو يعني هوتيلادان oo hadda deemeerahan oo lagu tarafuhiyo Soomaalida arag miis weyn oo raashin ay nooc u saaran yahay hilibkii baa saaran cabitaankii baa saaran qudaartii baa saaran maa'idadu waa miisaska nooca weyn Nabi Ciise wuxuu Ilaahay ka baqa hadaad muuminiintiin maxaa yeelay Nabi Ciise Ilaahay rasuulkiisa ayuu ahaa wax iyagu ayna dareemaynin buu isagu dareemayay maxaa yeelay waxa ay dalban hayaan waa mucjizada hadii la soo dajiyo oo mucjizada ay ku kufriyaana wala halagsamaya waa sidii hashi nabi saalix oo kale calayhi salaam taasu marka nabi ciise markii hadalka dhaheenba wuu sortaagay wuxuu leeyahay taqullah war ilaahay ka baqa waxa aad ilaahay ka dalban haysaan waa mucjizo ilaahay way u fududahay laakiin hadii mucjizadaasi ay timaado oo mucjizada saytahay aad u qaadan weydaan wala halagsamaya saasu markay soo hortaagay nabi ciise calayhi salaam wadhkur xusna bi muhammad oo dadka u sheeg ida waqti qaala al hawariyuna hawariyiti ay yiraahdeen ya ciisa ciisihi ibn maryama wiilkeeda ahaayow hal yastadiicu ma awooda rabbuka adiga rabbiga ma awooda أن ينزل إنو كسو دجيو علينا دوشنا إنو كسو دجيو مائدة ميسراشنا من السماء سماء حقيدنا وكسو دجيو قال عيسى وحوري اتقوا الله إلهي كبقى إن كنتم هداته المؤمنين كوا حق الرمي إلهي كبقى وهذا كان أسيغي سان كهلا قالوا وحيد هذا نريد وحان دونينا أن نأكل منها حقيدا إنا وحكعنا وتضمئن قلوبنا قلوب تنظو آي حاسشو مركان إلهي نعمديسا عصب إلهي أكتيسا كتمد مركان عنو قلبك نقول مركا أودغو ونعلم أن أغانو أنه شأني قد صدقتنا إنا نور شاكتي
بنبوتك النبي نمدادنا aad noogu run sheegtay oo wanakuuna aan ahaano عليها مائدة دشيدة من الشاهدين كوا كمرا كعيا oo ummadaha dambe aan imanin een hadda joogin u sheegayo u cadeynaya maa'idada Ilaahay inuu soo dajiyay saasay yiraahdeen si kale wax ugu sheegan waxay dhaheen nabi ciise waxaan dalabkan u sameeynaynaa waxaan rabnaa maa'idada marka aan cunno inuu qalbiga nagu dego waxaan kaloon rabnaa inaan aniga nabi nimadaada inaad noogu run sheegtay inaan ogaanana waan rabnaa bay yiraahdeen saasay dhaheen waxaa kaloon rabnaa bay yiraahdeen dadka hadda aan joogin ee naga dambeeya hadii maa'idadaas Ilaahay uu soo dajiyo inaan makhraati ka noqono oo ummadaha aan hadda joogin u sheegno Ilaahay inuu maa'idada mucjizahan soo dajiyay qaaluu waxay yiraahdeen xawaariyiti nuriidu waxaan doonaynaa an naakula inaan cunno minha maa'idada xaggeeda aan wax ka cunno oo watadma'inna qulubuna qulubtanadu ay degto oo wanaclama aan ogaano anhu sha'niya qad saddaqtana inaad noo run sheegtay binubuwatikana aad noogu run sheegtay oo wanakuuna aan ahaano calayha maa'idada dusheeda min ashaahidiina kuwa makhraatiga ka noqonayana aan ka mid ahaano قال وحول عيسى وحول يلي عيسى ابن مريم إنا كذا وحول يلي اللهم الله يو ربنا يا ربنا ربك نو أنزل كسو دجي علينا دوشنا مائدة كسو دجي من السماء سماء حق ذلك كسو دجي مائدة سو تكون نقول لنا أنك عيدا مال عيدات او ان حسنو نقن لاولنا انك كو نغا هره يا واخرنا كو نغا دنبا يا وايه ايات سو منك اديغا حقاغا كات ورزقنا اله يوم ارزاق وانت اذقنا خير الرازقين كو وح ارزاقك او خير بدن با تهي نبي عيسى عليه السلام الهي بو كدل بدي إلهي maa'idada inuu soo dajiyo markay waxoogaa ku adkaysteen maa'idada soo dajinteeda iyagoo la waxaan rabnaa inuu qalbiga nagu dego nabinimaduna ay noo xaqiiqowdo iyagoo sidaa leh markay ku adkaysteen nabi ciise ilaahay buu dalab u qadimay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu yiri soo daji samada ilaahu maa'ida ka soo daji maa'idadaasina waxay noqon doontaa maalin ciiday noo noqon aniga maalin aan xusno oo aan ixtiraamno oo aan weyneyno ayay noo noqon li awwalina wa aakhirina maalinka la soo dajiyay taas noqonaysa ilaahay yawna arzaaq kuwa wax arzaaqana ka ugu khayr badan baa tahay ayuu nabi ciise alayhi salaam nabi ciise عيسى ابن مريم إنا كذا اللهم الله يو ربنا يا ربنا ربك نو أنزل علينا دشنا كسو دجي مائدة دشنا كسو دجي من السماء سماء حق ذا كسو دجي مائدة سو تكون نقن لنا أنك نون نقن عيدا عيد لأولنا أنك متك نجا أبوه الريا يا وآخرنا متك نجا أقدم بأي بعيد النقط وآية النقن عيدا تكون تعلق تكون لنا عيدا وآية يكون عطفان تهيده وآية النقن آية داس ومنك هذه حاجة كهاتي ورزقنا إله يوم أرزاق وما إددا أسود جن إله يوم أرزاق وأنت عذيقنا خير الرازقين كو وحرزاقك أو خير بدن بعتهاي قال الله إلهي وحجري إني أنيق منزلها ما إددا وانسود جن عليكم دشنا كسود جن فمن يكفر قفكي قالوا بعد سود جنت ما إددا لسود جي كذب قفكي قالوا منكم حقين حالو كهذي فإني أنيق أعذبه
من كان عذابيا عذابا بان عذابيا عذاب كاسو لا أعذبه أنا عذابين أحد كاسو من العالمين عالمين تحقوا ذاك أهل أقودي هو أتكا وأقودي أذقوا ووحو النبي عيسى كبقي عليه السلام ومركي هرب أولها اتقوا الله أولها إلهي ما وحو يري ما إدد وان سود الجن لكن قفكي قالوا به waxa la faray maaidada xageeda laga farayna sameyn waaya ilaahay wuxuu yiri waan cadaab ana ahad caalamka kamid aan cadaabaynin waxyaabaha la faray waxa kamid aha oo culimada mufassiriintu ay leeyihiin maalma kama soo wareegin marka ay ku gaaloobeen reer banu Israa'iil waxa kamid aha maaidada ilaahay uu soo dajiyay qof walba inuu ka cuno wax waxba ka qaadanin waxa la faray inayna wax kayda ka qaadanin qofku inuu yimaado cuno markuu cunana uu ka tago waxbana ayna ka qaadanin baa la faray reer banu Israa'iil dad badan bay ahaayeen maalba kama soo wareegin baa la yiri markay farqaha ku gurteen oo la kala dhudhunteen maaidadii برد وفرس قال الله إلهي وحجري إني عنه منزلها مائدة وانسود الجن عليكم دشنا كسود الجن فمن يكفر قفكي قالوبه بعد إنزال المائدة مائدة مركا لسود الجي كذب قفكي قالوبه وأمرك إلهي قادم وايا منكم حقين حالو كأهذي فإني أنيق أعذبه منك وان عذابي عذابي عذاب كاسو لا أعذبه عذاب كأنا عذابين أحدا قف أنا عذابين قف كاسو من العالمين عالم كحق وذا كأهذي واذكر حسن نبي محمد وشيك إذ وقت قال الله أودهايو يا عيسى النبي عيسى ابن مريم إن كذا هايو أنت أذيك ميا قلت أو قولي للناس دتك اتخذوني إغدكت أنيغا يو أمي هو يديبا إلهين لبا إله من دون الله إله سكديسا قال عيسى وحي سبحانك الله نزهنا هذا ما يكون لي أنيق إيما أهانين أن أقول إن أنكو قوله ما شيء ليس لي أنيق أونا إيقو سقنانين بحق حق إلهني ما حق مدي إن كنت هدي أن أحي قلت هذا الكامتكو قولي فقد علمته اللواد أغاتي تعلم الله وحادوكتهي ما في نفسي نفتيدا وحا كسغان ولا اعلم انو ماوغي ما في نفسك نفتادا وحا كسغان انك انت علام الغيوب تهي وحيابها مقان الله كو علمي له مانك قيامه marka la isugu yimaado ilaahay wuxuu soo kulmin hayaa dadkii nabi ciise waa ilaahay yiri oo dhan buu ilaahay meel isugu keenaya maryama waa ilaah dadkii yiri oo dhanna ilaahay waa keenaya nabi ciisena ilaahay waa keenaya markaas ilaahay wuxuu dhahayaa subhanahu wa ta'ala ciise iyadoo mahsharkii la wada joogo oo bangi qiyaamaha la wada taagan yahay ayuu ilaahay su'aal weydiinayaa nabi ciise alayhi salaam ilaahay wuxuu dhahayaa nabi ciise ma adiga yiri aniga iyo hooyaday laba ilaah laga dhigto ma adaa yiri bal dibka ay nabiga u geysteen fiiri وعنان هذا عدق النبي عيسى عليه السلام وحوليه سبحانك إله أذان الزهن
wax aan xaq u lahayn inaan dhahona ku dhihi maayo aniga wuxuu ka wadaa nabi ciise ilaahnimada xaq uma lih inaan dhaho ilaah laga dhigto xaq uma lih nabi ciise wuxuu yiri calayhi salaam hadalka haddaan idhi ilaahay odaa ku cilmi leh waxa naftayda ku sugan alla waad ogtahay laakiin anigu waxa naftaada ku sugan ma ogi qaybka iyo waxyaabaha maqanna ilaahay odaa ku cilmi leh وارن علس واذكر شيخ نبي محمد إذ وقت قال الله ألا أوجري إذ وقت قال الله ألا أولها يا عيسى نبي عيسى عيسه ابن مريم مريم إن كذا هايو أنت أذيك ميا قلت للناس ذاتك أوجري اتخذوني وأمي أني هو يدي نجد نكتا إلهين إلا بإله من دون الله إله سكديس قال وحير عيسى سبحانك ألا ونزهنا هذا ما يكون لي أنيق إيماء هانين أن أقول إن له ما شيء ليس لي أنيق أونا إيقو سقنانين بحق حق إن كنت هدي أنا هاي قلت هذا الكامل إلي فقد علمته الله وادغاتي تعلموا الله وحادوغتahay ما في نفسي نفتيدا waxa ku sugan ولا اعلم اني لكن ما اوغي ما في نفسك waxa naftaada ku sugan انك انت علم الغيوب باتahay ilaahay wuxuu nabi ciise ugu man sheegtay ilaahay inuu xigmada baray bar hadalka uu ku hadlay nabiga fiir quruxda uu qabo wa xigmada ilaahay uu baray ما قلت له ما أنا أقول قول إلا ما كيمو يعني أمرتني آذي أمرتي أو أها أن اعبد الله إلهي عابدا ربي أنيك ربي عابدا وربكم إذيك ربي عابدا سأم بانوش يقول النبي عليه السلام وكنت وحانها عليهم دوشوذا شهيدا مد أعماشوذا مخراتيك أيانها ما دمت إنت أنكسقنا فيم يقدح ذوذا فلما توفيتني الله مركادي أوفستي كنت وحان نقطي أنت أذيقو الرقيب متكي إلالين وارديين عليهم يقدو شوضا وأنت أذيقنا على كل شيء كستا شهيد كي مخراتك أباته أك نبي عيسى وحير عليه السلام إلهي وحان أنه أمدن أشيغي wixii adigu aad ifartay amartay maanu sheegay oo waxa uu ilaahay amray muxuu nabi ciise ani ibudullaah rabbi wa rabbakum intaan saanu sheegu yiri markaan anigu dhex joogayna acmaashooda ana makhraati ka ahaayo ana ogaa nin walba waxa uu sameeynayo laakiin markaadii oofsatay ilaahay oo adaa waadiinaya buu nabi ciise calayhi salaam hadalka markuu ilaahay nabi ciise uu yiri riwaayaadku waxay sheegayaan timihii nabi ciise inay dheeraadeen oo tin kasta meesha uu taagnaa intuu ka dhaqaaqay dhulka uu qabtay oo tin walbana malag markii dambe uu soo qaaday gacanta ku soo qaaday maxaa yeelay hadalkaas hadal culus ma adaa yiri aniga hooyada ilaah naga dhiga waa hadal culus ilaah naga dhigta جميل ما قلت له ما أنا أقول قول الله إلا ما كيمو يعني أمرتني آذي أمرت به ماذا أن اعبد الله إلهي عابدا أمبان أقول قولي ربي أنيك ربي جيئها وربكم إذيك ربي جينها وكنت وحانا هذه عليهم دشوضا شهيدا مد مخراتي كأعماشوضا فلما توفيتني شهيدا من مخراتك أعماشوضا ما دمت انت أن كسقنا فيم يقدح ذوضا فلما توفيتني
allow markaadii oofsatay kunta waxaad noqotay anta adigu الرقيب مدك وارديين عليهم يقدسودا وأنت عدقنا على كل شيء كستا شهيد كي مخراتك أباتهي وحو البعضاء مخراتك وحو البعضيك أب هدان إلي إله أني هو يدي هلقا دكتو أذا أب هدان أدهن أذا أب إلهيو إن تعذبهم هداد عذابته فإنه إياه عبادك وأضم ذلك وإن تغفر لهم هداد أدن بنافتنا فإنك أذيب أنت أذيب العزيز الله عزيزه الدومديس كأذك باتهاي الحكيم أول بفلسا أو شيء كستميش أو كهبو يهي دقيا وحولي نبي عيسى هداد عذابته وأضم ذلك مالكو مملوكا sidoo rabo ayuu ugu tasarrufaa hantida aad leedahay iyo xoolaha aad leedahay saad rabtaad ugu tasarrufi innaka ilaahay ba inna leh soo rabo inoogu tasarrufaya ilaahay wa fa'alu lima yurid in tu'adhibhum hadi aad adabto fa innahum yaw ibaduka adoomadaada way wa in taghfir lahum hadad udambi dhaaftana فإنك أذيق أنت أذيق العزيز باتهاي الله أدومدي سكأذك الحكيم أول بفلسا قال الله إلهي وحولها يا هذا يوم كان قيامته يوم مال ويان وينفع صادقين تأو أنفعي صدقهم وأنفعيه ذاتك إيمان كوذا كرر شيئا ما أنت أيان أنفعي بأل الله سبحانه وتعالى لهم يغوحا أسقناضي جنات جنوين بأسقناضي جنوين كاسو تجري أي قلقلي من تحتها جنوين كهوستيدا الأنهار وبيال أي قلقليان خالدين حال أي كوانيان فيها جنوين كأبدا ورقود رضي الله إلهي باكر هذه النقضي عنهم يغا حقودا وردوا إيقونا رالي بين النقضين عنه إلهي حقي سكر هذه النقضين ذلك كاغاسنا الفوز الليمان ويه لبانتي العظيم وينيت كو تصوري كرم معها الدنيا markii la joogo qofku wuxuu ugu neceb yahay geeridu ugu neceb yahay aakhira laakiin markii la tago banka qiyaamo markii la isugu tago qofku wuxuu ugu jeclaan hayaa dhimash ugu jeclaan hayaa ilaahu meeshan yaa mar uu ka dilo oo ku dhaafiyo qofku uu ku tamaninayaa culayska jira laakiin qofku ilaahay waafajiyay adduunyada inuu dariiqa saxda ah ku socdo isaga waxaasi kuraasi intii loo dhigo oo had loo sameeyo ayuu waxa qiyaamada ka dhacaya filim ahaan u fiirsanaya laakiin waa qofkee kuwa Allah inagu daro qofku adduunyada markuu joogo buu jaan saystaa wixii aan kee u haleeyay uu hagaajin karaa laakiin qofka haday naftu kalxamaha haday timaado waxba yaani maartay marka waxba gacan ugu ma jiro laakiin qofku inta uu caafimaad qabo inta uu caadi yahay inta uu adduunyo rajo ka qabo wax kasta oo xumaata oo uu soo sameeyay haduu ilaahay u laabto ilaahay isku bihiyo ilaahay hortiisa uu ku ooyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ghafurur rahiim قال الله إلهي وحورها قال كستا او عشر كان كجرتا waxaynu nidhi بمعنى يقول maxaa yeelay aayadahani waxay ka hadlayaan madhar oo min madahir القيامه ay ka hadlayaan marka qaalada ku jirto oo dhan بمعنى يقول waay قال الله إلهي وحورها هذا كني ومانك قيامه هذا يوم كان قيامه يوم مال ويه او ينفع صادقين او انفعوا صدقهم انفعوا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم xoolo fara badan oo adduunyada ku lahayd iyo awlaad badan oo adduunyada ku dhashay iyo qabiilaan dheera ah oo aad ka dhalatay oo adduunyada ku dhex jirtay iyo
waxaasi maalinka qiyaamo waxba ma gooyaan bal ilaahay wuxuu inoo cadeeyay maalinka qiyaamo qof walba qofka ugu dhow inuu ka cararayo muxuu uga cararayaa wuxuu ka baqayaa qofkaas inuu qabsado oo xuquuq u qabsado ayuu ka baqayaa waad ka dhuuman ilmahaagaad ka dhuuman waalidkaabaad ka dhuuman islaantaadaad ka dhuuman qaraabadaada oo dhan waad ka dhuumanaysaa maxaa yeelay waxaad ka baqi qof kasta inuu yiraahdo ilaahayow adduunyada markii la joogay xaqii aan ku lahaa maana ka helin intaasaad ka cararaysa قال الله إلهي وحولها يا هذا يوم كني يوم مال وي أو ينفع الصادقين صادقين تو أنفع يصدقهم وأنفعي لهم يجا أي أسقنا ذين جنات جنوين كاسو تجري أي دريريان من تحتها جنوين كهوست هذا الأنهار وبيان أي دريريان خالدين حال أي كواريان فيها جنوين أبدا وريقود با ونعمه محاكسي النعمة بدن رضي الله عنهم ورضوا عنه maxaa yeelay qofku hadduu janno galo ridaha ilaahay ilaa uu ka xaqiiqsado inuu helay waxba ka maqan nicmada ugu weyn nicmooyinka ilaahay uu bixiyo waa inuu ridaha ilaahay ku xaqiiqoobo ridaha ilaahay subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum ilaahay ba xaqooda ka raadi noqday ورضوا إياغنا ويراد النقدين عنه إلهي حقي سيكراد النقدين وإلهي ما دي أمال مريء وقنعيي ذلك كاغاسنا الفوز الليبان وي ليبان العظيم وي هذا الجنة قال الليبان تكون حقي جوكت هذا ردها إلهي هلي ليبان تكون من محيطها ليبان وعظيم كوال ليبان تاس بريا بدن يدبغي بدن والله لسو الليبان معه liibaantu waxa weeye inaad jannada ilaahay hesho ridaha ilaahayna aad hesho labadaana waxa lagu helaa iimaan oo saadiqa iyo amal saalix lagu helaa lillahi ilaahay buu ahaaday mulku samaawaat kala haashahooda iyo wal ardi dhulka iyo wama fiihinna waxa dhexdooda ku sugan oo dhan wa huwa ilaahayna ala kulli shay'in shay kasta قديرك أبوذوي شيء كستني هو أبوذا لله إلهي بو هذا ملك السماوات كلها شهودا سماوات كإلهي با إسكاله سبحانه وتعالى والأرض للكن إلهي با إسكاله وما فيهن وحل وضع دحضودا كسغنا إلهي با إسكاله وهو الله على كل شيء كستا قديرك أبوذويان والله أعلم